iyadoo ay socoto diiwaangelinta madaniga ah guud ahaanba gobolka Gabiley gaar ahaan degmooyinka kala duwan ee hoos yimaada gobolkani Gabiley ayaa degmada Alley Baday waxa maanta booqasho ku tagay mas'uuliyiinta ugu sareysa gobolka Gabiley oo warkacaya kusimaha barasaabka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Gabiley saraakiisha nabadgelyada iyo waliba mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan iyadoo mas'uuliyiintaasi guud ahaanba degmada Alley Badayna ay shacbiga ugu baaqeen inay ka qayb qaataan diiwaangelinta madaniga ah guud ahaan ka socota deegaankani Alley Baday oo ay ku tilmaameen in ahmiyad weyn u leeyahay dadweynaha reer Alley Baday run ahaantii ilaa shalayto waxaan ku jiray gobolka Gabiley iyo degmooyinkiisa annagoo runtii ka soo bilownay magaalada Wajaale oo diiwaangelintu ka socoto 8 goobood oo ka mid ah Wajaale runtii annaga mas'uuliyadeedu ka shirkad ahaan Soomaaliya waxay ahayd inaanu geyno networka lagu diiwaangelinayo gobolka Muradisheekh imikana ku fidii doonta gobolada Berbera iyo Boorame maantana anagu waxaanu maraynaa inaan u rarno degmooyinkii si ay dadku isku diiwaangeliyaan dadweynaha reer Alley Baday halkan waxaan aad uga salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta yidhi dadka reer Soomaaliland ha loo sameeyo astaantii ama sumadii ay kaga duwanaayeen ummadda kale ee Soomaalida ah ee maanta u gaarka ahayd Jamhuuriyadda Soomaaliland ee muwaadin wal oo reer Soomaaliland inuu qaataan in loo sameeyo maanta waxaan kale uga diigayaa inaanu qofku double vote samayn laba jeer inaanu ku soo noqon dhulkiisa waxa weeyaan waa network waxa weeyaan waa wax isku xidhan Gabiley waxaanu ku qabanay dhowr kiis oo noocaas ah qofkii oo iska socda intuu Hargeysa ka soo galay ayuu dibadana halkan istaag ka gal marka waxaan leenahay isku ceebayna si fiican bay hawshu marka loogu socotaa kastoo ay bilow tahay 6 goobood baa halkan Alley Baday gudaheeda aanu keenay guud ahaanba diiwaangelinta madaniga ayaa si wanaagsan uga socota degmadaasi Alley Baday waa Nimcaan Dheeg Ibrahim TV qaranka Gabiley.